waxaan rabaa markaa dadka Soomaaliyeed ma qarsoomin dawladda Itoobiya ee dariska aan nahay waxay sheegtay gob ma aydin sovereign ma aydin idin la tashameyn idin warsameyn waxa samaysateen oo adiga waa dawladeena aad leedihiin dawlad ma aha dhulkaana nus ana qaadanayo walaalaanahay darisana nuskan waxogaa yaa ma aragtay ha shalay daris maanaan noqon weligeena meeshaan kala deganayn haddii maanta dhul la isku sheeganayo annagay tahay inaan ku sheegano Itoobiya annagay tahay Itoobiya inaan dhul ku sheeganay ayadu inaan dhul nagu sheegata ma aha nagumana sheegan karto intaan ka sheegna cadu waa hal waa shabaab maanta waa labo waa awoodnaa shacab iyo ummad jirtaan nahay shabaabkana waa iska celinaynaa duulimaadka dibadda ka yimaadna waa iska celinaynaa intaba waa isaga filannaa ninkii qaba inaanu isaga filnayn ka kacan lena hurdada waa hurdo haysaa waa isaga filannaa waana isaga filnaanaynaa marka nimaan muxuu ahaay gobnimadeennii aan aqbalsanayn oo dhulkeennii nusaan qaadanayaa leh shacabkeennina waa kala qaybinayaa nusna waa saasaa tihiin nuska kalena waa saas na kala dhahayo isaga waa cadow iska dhicin iska celinowna mudan yahay waana iska celi jirnay weligeen ka fac waana la yaqaan maanta waa iska celi dadkii aan nahay ismaanaan bedelin kuwii shalay ilmahoodii aan nahay waa iska celi jirnay waa iska caabi jirnay waana ka guulaysan jirnay waana ka guulaysanaynaa waana iska caabinaynaa dadka Soomaaliyeed marka waxaan leeyahay ha ku kadsoomina walaalaan nahay darisaa idinla nahay saanaan nahay wanaaga isuu keen jiro kana isuu keen jiro mugaansannaha wanaag isuu keen jira mugaad xeradeeda soo gasho oo xoolahayga qaar inaad la baxda aad rabto oo dhulkayga qaar inaad goosato aad rabto oo shaatiga inaad iga siibtoodo waa ka qaawina xagga ta saaxiib maahin walaalana maahin Itoobiya waxaan leenahay dhul ay leedahay waa weyn yahay oo u fiican yahay waa u barwaaqaysan yahay ha ku ekaato dhulkeeda ha ku ekaato wixii intaas ka soo haraa macaamil iyo daris wanaag iyo waasaan aan macaamilayno waa wax adduunyada dhan ay ku dhaqanto waana ku dhaqmaynaa ha ka waantoobaanaan leenahay Itoobiya in ay marna dhulka soo hawaysto dadka Soomaaliyeedna hadduu yahay shacab iyo hadduu yahay siyaasi iyo hadduu yahay wadaad iyo hadduu yahay ganacsade xoola masaalix iyo faa'iido raadinayo yaan lagu kadsoomin dhulkanaga midnimadeenna gobnimadeenna wax lagu bedelo karaa ma jiraan qof ka dareynayana saaxiib kulama noqon karo saaxiib kulama aha meelaha ayagoo warwareegaya la ii sheegaya oo meelaha qaarkood dad u soo dirdiray oo xuduudda ballaaran aan leenahay meel ka soo galgalay oo dadka la hadlayo oo kuwa siyaasiyiin iyo saraakiil military iyo waxa la sheegay yaan lagu kadsoomin yaan lagu sirmin umaleyn mayn ma jirto ninka socdaahi ee ku imaanaya dhulkanaga u socdaa ogow shabaab yaa labadii sano la soo dhaafay la diriray shabaab Soomaaliya la diriray dadka Soomaaliyeed la diriray dhulka laga baneeyay dadka Soomaaliyeed ka baneeya ka xoreey shabaabaan kula xoreynayaan lagu dhihin cadawaan ka celinayaan lagu dhihin Soomaali kale cadow inta lagaaga dhigo lagu tilmaamo lagu yiraahdo kaasa cadow ku ah anaana ka celinayaan lagu been sheegin Soomaali cadow waa ma jiro digniintaas marka dadka Soomaaliyeed aan u dirayaa dhaqdhaqaaqa socda hal iska ilaaliyo waada iyo propagandada cadowga uu leeyahay la iska ilaaliyo duulimaad ma ahin laakiin in lagu soo duulo ma ogolaanayno ha ku kadsoomina ayaan leeyahay dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan baaq u dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan maanta waa maalintii midnimada waa maalintii la midoobay waa maalintii hal noqon waa maalintii ra'yiga laga midoobay xagga ra'yiga dadku walaalaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay waxa idin kala saarnaado waxa ku sugayo oo biri dambe iyo bisha dambe iyo sanadka dambe iyo sanadaha dambe aad xalli karto iyo waxa aan ku sugaynin ku kala saarnaadaan doodaha dhaxdeena yaalo sidaana wanaagsan maya sidaana ka wanaagsan
waxaan sidaan si ka wanaagsan oo loo suubiyaa jirta ah waa doodaha dhexdeena yaal horena way soo ooli jireen haddana way sii ooli doonaan waana ka doodaynaa isku maquuni mayno isku dili mayno isku dardari mayno haddii alla yidhaah soomaaliyey dhulku hadduuna dhaafo noo soo noqon maayo dhulku hadduuna dhaafo noo soo noqon maayo maantuu gacanteenna ku jiraa yaanuuna dhaafin war qof kastoo Soomaali ahaw da' kasta ahaw maqaam kasta lahaw meel kasta caalamka iyo Soomaali gudaheeda uga noolaaw waxaan maanta isu diraynaa isfaraynaa waxay tahay carrada dhulka inaan ilaashano oo aanan ku kadsoomin beenbeenta iyo baqlada waxaan rabaa si gaara inaan farta ugu fiiqo qurba joogta Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ee dalka dibadiisa ku nool waxaan leeyahay walaalayaal kuwa dalka gudihiisa ku nool hadday tahay dawladda iyo ciidamadeeda iyo hay-adaheeda iyo hadday tahay shacabka oo ay u soo baxeen nimanka la yiraahdo macwisley difaaca mujtamaca difaaca bulshada iyo deegaanada la yiraahdo u soo baxeen doorkoodii way qaateen waana u taagan yihiin saacadda jimcada ah ee masaajidka dhexdiisa aan ka hadlayno wiil Soomaaliyeed xabad ridayo wiil Soomaaliyeed dhufeys ku jiro oo saas cadow hortiisa jooga ilaalinaya wiil Soomaaliyeed ku sii socda meel cadow joogay oo maxaa buraashadiis inta biyo ku shaqto ku sii lugayna ku sii socda walaalaha qurbaha jooga waxaan leeyahay Soomaaliya markay qatar gasho waa u istaagi jirteen marka cadowna soo haweysto waa u istaagi jirteen oo ay ugu horeyso kuwa maanta na haweysanayo shalay waa u istaagteen waa u midowdeen waa u taagneedeen maantana meeshii shalay joogtaa مسؤولية الدلك إذا كسارن واجب كذي يعني إذا حسوسيننا وأكتين إن هذا استاجتان أو أضوحة إذا كان مضنتها صوماليا دول كذا إذا كان مدنيا دي بدأت جوكتان دولات جوكتان الدبلوماسية حد كل ذهين رقالات دلك حد كل ذهين أباب الكيسة مواقفتين أذكر مديسن إنها تسوء استاجتين شارعة آيات حق كل ذهين عاد الله بنانك أصابها ملك استو عالم قاعد كجنوشين موجية دلكين إن أنا لقاعدة كرن هدي أليرة مركز سومالي قطر قشو ولا إذين بحث جري قرب جوكت سومالية ذي ما أنتنا ومالين تيني أي هلا إذين بحثوا أيان لنا ويلك سومالي جيل جرها هدي أو قب يجب نمو أو رادية أو أردنت أو تاجية wiilka Soomaaliyeed iyo gabadha Soomaaliyeed ee Yurub iyo Amerika iyo bariga Afrika iyo khariijka iyo caalamka meel walba ku nool Australia New Zealand caalamka meel walba ku nool wiilka Soomaaliyeed ee geeljiraha ee macwisleyda ah kama dareen iyo ogaal yarid kama aqoon yarid kama maxaan ku raadayay dal jecel yarid dawladda iyo shacabka Ethiopia shacabka Ethiopia annaga wax naga dhaxay malaha laba shacab aan nahay darisaan nahay waligeena ahaa jirnay barino ahaan doona qowmiyadaha Ethiopia kala duwan ayaga dib qabo dibkooda ha xalistaan Allah u fududeeyaan leena dawladda Ethiopia waxaan ugu baaqayaa taariikhdii 600 sano soo jirtay ee Soomaaliya iyo Ethiopia u dhaxaysay ee cadaawadda ahayd ee isdilka ahayd ee soo gabagabowday 1990kii markii dawladda Ethiopia ay duntay dawladda Soomaaliya ay duntay Soomaaliya waxay u dhaqaaqday taariikhdaas inay meel dhigato wanaag iyo diris wanaag iyo maxaan ku raaqal bisamaan ay kula dhaqanto Ethiopia nasiib darro maanta waxaa dhacday dawladda Ethiopia taariikhda boggi taariikhda aan laabnay 30 iyo dhowrka sano ka hor inay dib u soo rogtay soo celisay ay u muujinayso dawladda Soomaaliya cadaawad maslaxad aan ka wada shaqeyn karno iyo niyad wanaaga aan wada qabi karno maxay tahay marka dawladda Ethiopia ay calan si jid kala taagan tahay ilaa waliba ma waa kala madax banaantiin maanta Soomaaliland waa madax banaan tahay ay ku doodayaan bari ay ku doodi doonaan kuwa kale ma aaninta dambe maxaa banaadir madax banaan ayagoo dhahayo yaa ay imaan doonaan balaayo geesa la qabtay leedahay
dib la qabto ama sayn la qabto male Soomaaliyay dhaqanka Itoobiya maanta ka soo muuqdahay waa balaayo geesa la qabtayna leedahay geesa aan ka qaban duulimaad kuma ahin uma soconno lama dirirsanin laakiin kama yeelayno ha ogaadeen ma dhacayso inta wiil Soomaaliya uu nool yahay oo socdo dhulka Soomaaliya in qayb kamid ay baxdahay ma dhacayso hal hayska ay not an inch hal inch xataa ma ogolin yaa naga wada dhaba kulligan meel kasto caalamka uga noolnahay laakiin darajadu waa dagab la isla siday Soomaha dagab weyn oo culus oo la isla siday hadii dhinaca laga deeyay adigu miyaad hayn kartaa kaliga ma hayn kartid marka waxaan leenahay waa saas intii aan wanaagsanayn oo rajada fiican iyo wanaaga iyo diris wanaaga iyo spiritka yaani aan qalbigaas wanaagsan aan qabnay wixii aan sameeynay oo dhan inaan intaan ka guurno cagsigeeda aan sameeyno adiina lagu arko Soomaaliduna ha ogaado caalamkuna ha ogaado ayaga nagu kalifay maanaan dooran annaga cadaawadu ayagay ka timiday duulimaadka ayagoo ka yimiday dhulka la qaadanaya ayadoo ka yimiday ma dhicin waa taa hadda sheegay 600 sano ay dhici weyday Itoobiya inay dhul Soomaaliyeed qaadato 600 gumaysiga noo luga qabtay dhulkeena qaarsi laakiin Soomaaliya dawlad ah ma dhicin 63 sano la soo dhaafay inay hal mitro Soomaaliya kamid xoog ku qaadatay Itoobiya iyo xeelad ku qaadatay intaba ma dhicin qarniga 12aad ma dhacayso bas ayaga waxaan ugu baaqaynaa dib u fiirsada gadaal u fariista taariikhda dib u noqda akhriya wax aan kala nahay ogaada markaas kadib aad muxuu miirku idin soo noqonaya dhul la qaadanaa mugay timaado Itoobiya waa ku siran tahay aan leeyahay waa ku siran tahay doodaha dhaxdeena ka socda iyo waxa media aan ka sheegnay iyo qaylada aan meelaha isku qaylinayna iyo waxa hadii ay u aragtay inaan qaybsano kala tagino dhulka qaarkiis aan dhiibi karno waa ku sirantiin dad dimuqraadi ah oo dabiiciyan hab nololeedkooda dimuqraadiyad yahay waa is eedeyn karnaa waa isku farafiiq karnaa laakiin xuduudaan leena aanan ka gudbin dawladnimada gobnimada waa wiilal Soomaaliyeed maalin kasta dhiigooda u baxaya inaan dawlad noqono ka dhiigooda dawladnimada u baxay iyo kii hawsha waa laga hayaa lahay meel fadhiiba maanta dhulka la qaadanaa hadii la yiri dhiigooda banaanka wada taagan yahay dawladda Itoobiya intaas ugu baaqayna shacabka Itoobiya anaga dood idaaco uma qabna dawladda Itoobiya ugu baaqayna shacabka Itoobiya ayaga dawladda Itoobiya ku dhax dhiban laakiin ayaga dalkooda iyo danahooda ayaga yaqaano sida ay u xalisanayaan annaga keenan naqaana Itoobiya dhulka naga ha ka leexato caalamku ogow caalamkana waa u baaqaynaa Itoobiya dhulkeena ha ka leexato wali inay ka waantoodaan qabnaa waray joogtaa ficil yaani ku darin maanta waa isla warameena ayaguna waa warameena annagana waa hadleena ayaguna hadleena annagana waa hadleena hadal ay joogtaa war ay joogtaa maalintay ficil hal talaabo oo ficil ay dhulkeena u soo qaadaan 2 iyo 3 iyo 4 qaadayna ayaguna yeeni ku kadsoomin nama eedi karaan biri caalamkuna nama eedi kara biri dawladda Soomaaliya maxay go'aanka noocaas u qaadatay caalamkuna nama dhigi karo ayagana nama dhigi karaan waxaan kale halkaan uga mahad celinayaa dhammaan dawladaha caalamka ka tirsan iyo ururada caalamiga ah ee dhowray mabaadidooda asaasiga ah ee Soomaaliya ku garab istaagay muxuu ahaa qadiyadan dulmiga ah ee lagu hayo aadan ugu mahad celinaa dawladaha saaxiibadahan u mahad celinayna ururada Soomaaliya ee ka tirsan tahan u mahad celinayna kuwa wali aamusanna waxaan ka rajaynaynaa inay ayagana mowqifkooda cadeyn doonaan Soomaaliya maanta waxay taagan tahay mabda'a caalamiga ah maxaan ku raday ururada ugu hoose igadka bilow African Union ku geey jamciyad qurumaha ka dhaxaysa geey maxaan ku radaa jaamacadda Carabta geey ururka Islaamka geey muxuu ahaa East African Community geey dhammaan waxay ka midaysiin dalalka in la ilaaliyo sovereignty-ga territorial integrity-ga iyo maxaan ku radaa unity of the people in la ilaaliyo waa laga midaysan yahay midnimada dadka midnimada dalka iyo deegaanka iyo dawladda in la ilaaliyo oo dalna dalka kale saddexdaas aanu uga xad gudbin dal kale waa la isku wada raacsan yahay waa mabda caam ah oo dunida dhacayso kuwa la gagabaday oo wali sheegila waa rajaynaynaa inay sheegaan
kuwii sheegana aad iyo aaday ugu mahadsan yihiin waa u mahad celinayna dadka Soomaaliyeedna waxaan leeyahay tulad geelahoo dhacan baad toogasho u bareertaane ma dhulkoo dhan moo tagaybaa nin dhagax u tuureen maanta meeshay taagan tahay aad iyo aad u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.